sida aynu ku helayno xogaha ka imaanaya magaalada Hargeysa ciidamadii ugu badnaa ee ilaalada madaxtooyada Somaliland ayaa xabsiga lagu guray kadib markii ay jirdil u geysteen agaasimaha guud ee madaxtooyada maamulkaasi Maxamed Cali Bile ila waradii lagu kalsoon yahay oo xogtan aynu ka helnay ayaa inoo xaqiijiyay in ciidamada iyo agaasimuhu ay is-afdhaafeen kadib markii xalay agaasimuhu ay u diideen ciidamadu inuu galo madaxtooyada waqti ku beegneed 9 habeenimo. xogtu waxa intaas ay ku sii daraysaa in sidoo kale ciidamada ilaalada ay xabsiga ku yaala madaxtooyada ku xiran agaasimaha oo markii dambe amar madaxweyne lagu sii daayay. waxa arintaas ay keentay in xabsiga lagu guray dhammaan ciidamadii ilaalada madaxtooyada ee falkan ku kacay haddana ay ku xiran yihiin caasimadda Somaliland. agaasimaha ayaa la xaqiijiyay in dhaawacyo ay ka soo gaareen jirdilka ciidamadan ay u geysteen gaar ahaan dhinaca dhabarka ayaa la soo sheegayaa in dhaawacyada ugu badan ay ka soo gaareen waxaana durba arintan galay madaxda Somaliland. askarta dilay agaasimaha madaxtooyada ayaa mid kamid ah horay waxay isku afdhaafeen agaasimaha waqti hore waxaana arintan loo arkayaa inay ahayd shilqool abaabulan. waa markii koowaad ee ciidamada ilaalada madaxtooyada ay garaacaan jirdil ay u geystaan agaasimo soo maray madaxtooyada iyada oo dadkuna isweydiinayaan sababta waqti habeen ah agaasimuhu dhankiisu u tagay madaxtooyada isaga oo madaxweynaha wax ballan ah uusan lahayn. ciidamada kale ee ku qornaa madaxtooyada ayaa iyaguna waxa amar diido ay sameeyaan maanta kadib markii saaxiibadood xabsiga lagu shubay waxaana la wareegay ammaanka madaxtooyada Somaliland ciidamada gaarka ah ee RRU-da la yiraahdo. ciidamada madaxtooyada ayaa hore loogu haystay qaarkood dil gabar ka shaqeynaysa madaxtooyada oo meydkeeda laga helay madaxtooyada dhexdeeda taasi oo ciidamo badan hadda ay u xiran yihiin. si kastaba arintan ayaa hadalhayn badan abuurtay waxaana la yaab ay ku noqotay bulshada deegaanada Somaliland iyadoo mararka qaarkood dhacdooyinka noocan oo kala ah siyaabo habkan ka duwan ay hore uga dhici jireen caasimadda Somaliland ee Hargeysa balse hadda in madaxtooyada dhexdeeda agaasimo lagu garaaco ay noqotay wax hadalhayn badan abuuray waana arinta maanta ugu saameynta badan deegaanada Somaliland marka la eego.